madaxweynaha Soomaaliya maanta uu hadlayay khalad weyn oo sharci buu galay marka meelaad marayso isgaran weydo hadalku waa ka tagtagaya khalad sharci weyn buu galay shir baa igad ka dhacay buu yiri bal wuxuu la gola tagay hays weydiiyo isaga gartii sii qaaday Soomaalidiina gartii buu ku naqa wuxuu yiri xuduud annaga iyo Itoobiya noo dhaxayso sharci ma jirto Soomaalidu wada maqlayn markuu masaajidka ka hadlayay arinta marka sharciga caalamka la isla tago waa khalad sharci weyn madaxweynaha Soomaaliya maanta uu hadlayay khalad weyn oo sharci buu galay marka meelaad marayso isgaran weydo hadalku waa ka tagtagaya khalad sharci weyn buu galay shir baa igad ka dhacay buu yiri bal wuxuu la gola tagay hays weydiiyo isaga gartii sii qaaday Soomaalidiina gartii buu ku naqa wuxuu yiri xuduud annaga iyo Itoobiya noo dhaxayso sharci ma jirto Soomaalidu wada maqlayn markuu masaajidka ka hadlayay arinta marka sharciga caalamka la isla tago waa khalad sharci weyn haddaad doodayso leedahay dal baanu leenahay intaan aanu leenahay haddana xuduud ma kala leeyihiin haddaad leedahay marka adiguna soo galday weey madaxweynaha khudbadaha noocaas oo kala ah waa rasmi bariga hore inaga sharciyada u dhigi jiray dawladda Barnaa iminka intay isu keen xariifiyeen waa kuwa le Soomaaliya xuduud ba male dhinac marka laga eego waa waxba ka jira oo Soomaaliland xuduudeeda waa la xadiday oo demarcation baa lagu sameeyay waana la calaamadiyay intii isticmaaladu joogeen laakiin Itoobiya ay u dhaxaysa 3 baa mar meel loo raray tuu ka hadlaya marka waa taa wuxuu leeyahay meel calaamadsan ma lihin marka hadda isagii baa isku soo hogaaminayay isagii baa isku soo hogaaminayay Soomaalidiina khalkhal buu ku fura marka waxaan leeyahay intii naasu idinku filanay haydin qaado idinkii oran jiray yoobsan bay tuban yihiin waa qaldaan waa ku oran jiray dhulkiinu muus male dhulkiinu waa qarax dhulkiinu badar male waa wixii deeqayna waa qarax aan samaan gelino eedda badan inta leeyahay runtii ay ku kaliyeysteen waxa la barorta hadal dib uga noqdaan dhamaantii weydin hambalyeynaya xafiiska cusub weydin mahad celinaya waa inay wada shaqeynayna hadii la ka dhigo